السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الناصر ومانتنا سيدي عدد إنه أحيد هل كان يدي كسوق اللي قدونا برنامج شيء كسب سنة أرمها بالشرع مانتا قيبت عن دي هيا وشيكو وقيبت شيكوينكا شيكا مانتا عن دي هيا مقعدة وحالينا هذا هيجو جعين أي الله هذا مقعدة انت انا شيكا بلاد وحاسي حشمدي قدر الله يدي كعد سنة يا سبسكرايب لايك and share qaybta comments-ka ayaa noogu dhaafi doontaan wixii fariina iyo wixii warbixina iyo wixii aad haystaan oo dhan insha Allah taala intaas kadib sheekada ayaan guda gali doonaa la magac baxday higo jacayl waxa la yiri laba nin oo ilaa dhalaanimadii saaxiib ahaa ilaa iyo markii ay waaweynaadeen labada nin markii laba nin oo waaweyn oo maxaan ku raadayay gaaray gadihii guurka ay noqdeen labadooduba sanad bay wada guursadeen iyaga isu malxiisay laba magaalo oo aad isugu dhoweyn deganaayeen waxay ahaayeen laba nin oo saaxiiba oo aan la kala dhex marin waxay ahaayeen laba nin oo saaxiiba oo aad iyo aad isugu wanaagsan oo ilaa dhalaannimadiina aqoon fiican isu lahaa dabeetana waxaa la yidhi labadii nin ayaa maalin maalmaha ka mid a sidii ay u wada socdeen iyaga oo suuq ka mid a suuqyada magaalada maraya ayaa waxa dhacay labadii nin ka mid a ayaa waa uu higooday higadii baa istaagi weyday wuu higooday higadii baa joogsan weyday dabeetana saaxiibkii baa weydiiyey oo kuuri waarniyo heedhadee waa maxay waxaanoo higii maxaad la higoonaysaa dabeetana wuxuu ugu jawaabay waarniyaho waxaan la higoonayaa xaaskaygu haddii ay niyadda igu qabataba oo ay ii baahan tahay sidaasaan u higoodaa waa calaamad ka mid a calaamadaha ku tusaya jacaylka aniga iyo xaaskayga naga dhaxaysa wanaagga iyo xishmadda iyo qadarinta aan isu hayno ayay arrintani ku tusaysaa buu yidhi sidaa daraaddeed saaxiib waan kaa tegayaa sidaa ula soco mar haddaan higooday xaaskiibaa niyadda igu haysa oo ii baahan markaa waan kugu soo noqon doonaa laakiin haddeer iyadaan u tegayaa saaxiibkiisii kale ilaahay fajaciyo ama kaadhiyo yaabuu u keenay dhabanka iyo gacantuu isa saaray qaadan waabaa ku dhacay arrin mucjisaahoo aan hore u arki jirin ayuu saaxiibkii ku arkay dabeeto ninkii odayga ahaa wuxuu labada nin magacooda midna hanad baa la yidhaahdaa midna haybe wuxuu iska tegay gurigiisii buu iska tegay xaaskiisii iyo reerkiisii buu u tegay markii uu xaaskiisii iyo reerkiisii tegay ayaa waxa weeye gabadhiisii baa ka yaabtay wejigiis farxad iyo bashaashnimo ayuu la soo geli jiray awal guriga waxa weeye ilaa uu qof kasta salaamo oo uu qof kasta halka uu ku jiro ka madbaqa ku jira ka fadhiga fadhiya ka qolkiisa fadhiya ilaa uu qof kasta soo eego oo uu yidhaah xaalkaaga ka warran sidee tahay oo uu xaajiyadda waraysto haye maanta sidee tihiin ka warrama maalintiina maxaa inoo kala dambeeyey iskamu fadhiisan jiray dabeetana maalintaas siduu u soo socday isagoo wejigiisa madluulnima ka muuqato ayuu iska fadhiistay fadhiga dabeetana gabadhii baa u timi waar heedhe maxaa kugu dhacay maanta gacali dabeetana wuxuu yidhi waxa igu dhacay waxaan weligay igu dhicin baa maanta igu dhacay waxaanan iloobaynin baa igu dhacay waxaan moodayay inaynu nahay laba qof oo isjecel laakiin maanta waxaan ogaaday in jacaylkeenna ay waxsi ka yihiin taluub xaggaaga mise waa xaggayga macalcuna soo bixi doonee bal waa la arki doonaaba bishuba horteenna iman sidaasuu ku yidhi gabadhiina ilaahay yaab iyo amakaabuu iyadiina u keenay way yaabtay way fajacday hartalow ninkii maxaa iska bedelay miyuu soo waalanayaa miyaa la soo hayaa majin baa dardaray isla markiiba wadaadaday la hadashay qur-aan iyo dikri iyo maxaan ku dhahday qur-aan saar baa ninkii lagu bilaabay hawshii baa sidaa u socotay dabeeto muddo kadib ayaa gabadhii waxay ka fikirtay warniyo yaa kugu yidhi hadalkaa markaasuu yidhi dee maxaa ku keentay bay tiri isma jecel dabeetana wuxuu yidhi waxaan ku keenay ninkii aanu saaxiibka ahayn ee hanad ayaa maalin maalmaha ka mid a annagoo suuqa wada marayna ayuunbay bahal higa a bilaabay higadii buu kala joojin waayey markaan weydiiyan kuuhi warniyo higadani waa maxayna wuxuu igu yidhi gabadhaydu markay ii baahan tahay baan sidaa u higooda dabeetana waxaan ka fikiray adiga iyo gabadhaadu miyaydaan isjeclayn isumaba higootaan oo maba higootid adugi maxaan higoon waayey anigu dee maad mar hore ii sheegtid bay tiri ma sidaasaa sheekadu anigaa kuu haya waa sax mar hadday arrintu sidaa tahay waxaad samaynaysaa bay tiri salaasada soo socota haddii aan la yidhaa
adiga iyo saaxiibada oo dhami iyo ilaa ninka hanadee warka kuu sheegay nin walba wixii aad saaxiib leedahay soo kaxayso macsuum baa wada tihiin gebigiinuba dadkii oo dhan bay macsuuntay way wada casuuntay casuumad la yaab labay samaysay cunto dhadhan leh oo wanaagsan baa la sameeyey waxa la soo karaystay dumarkoogiina oo si fiican cuntada u kariya waxa la soo kaxaystay waxa la yaala wixii dariska ahaa hawl adag baa la galay gabadhii hawl adag bay gashay dabeeto maxaa dhacay maalintii ballantii markii ay gaadhay ee cuntadii la soo dhigay nooc walba hilib dad mooye meeshaa wax ka maqan ma jiro hadday tahay wax la cuno iyo hadday tahay wax la cababa meeshaa wax ka maqan hilib dad mooye ma jiro halkii baa la soo wada dhigay cuntadii oo wada diyaara dabeetana ninkii haybe ahaa cuntadiisa gaar baa laga soo dhigay isagu xaalado gaar u leeyahay waydikaas waa iska bilaaban kartaan baa layidhi cuntadiina iska qadeeya waydikaa dabeeto raggii oo soo wada labistay raggii uu haybe fariinta gaarsiiye casuumadda ee asxaabta ahaa oo nin walibana saaxiibkii wato oo si fiican u wada labisan oo yaabaysa muuqooda iyo dhalaalkooda ayaa halkii yimid oo waxa weeye nin waliba uu isgeejinayo casuumaddii baa la fadhiistay waa la bilaabay waa la cunay haybana wuxuu bilaabay inuu qaybtiisii isaga gaarka ahayd ee loo soo sameeyo loogu talagalay ilaa waa ninkii guriga lahaaye ayuu isaguna cunay isla markuu cuntadii sidaa hayba u bilaabayba bahal higa ah u bilaabay way joogsan weyday higadii baa joogsan weyday higadii ayaa joogsan weyday dabeeta raggii cuntada la cunayay oo dhan bay qaarkood baxeen oo isdaahdeen talow miyuu dhimanaya talow maxaa ku dhacay waa ninkii maxaa ku soo booday qaar baa dhakhaatiir la hadlay dhowr ambalaasoo kuwii dadka xanuunsanaya qaadiyababa meeshiisa soo taagay yaab iyo amaka casuumadiiba waxay isu bedeshay wax kale markaasuu haybe yidhi maya waar saad moodaysaan maaha haybe laftiisu markaasuu wax fahmayo wuxuu yidhi arrintu sidaad moodaysaan maahee war niman yahow waxaan ihaye ee aan la higoonayaa waa higa jacayl anigii haybeba saasaan ugu higoonnaa marka ay dumarka iyaguna u qabtaan niyadda markaasaa wax alliyaalo wixii meesha rag joogay oo dhan ee casuumadda ka soo qayb galay ayaa nin waliba wuxuu qaatay fariintiiyo nin waliba gabadhiisii buu kula noqday gacanisay miynaan inagu isjeclayn maxaa dhacay bay ku tiri mid walba lagu idhaahdo markaasaa wuxuu ku leeyahay maanta waxaana casuumay ninkii haybe dabeetana cuntadii markaanu sidaa u bilowday ayuunbuu higa bilaabay markaanu weydiinay ku nidhi war waa maxay higadanina wuxuu yidhi markay gabadhaydu ii baahan tahay ama ay xaaskaygu niyadda igu qabato ayaan sidaa u higoodaayo higa jacayl baa layidha maxaanu anagu higa jacayl u higoon laanahay dhowr iyo 20 nin oo halkii ka qadeeyey nin walba waxa weeye fariintaasuu qaato ula tegay gabadhiisii markaasaa waxa weeye gabadh waliba dee halkii casuumada unbaa ka bilaabmay oo gabadh waliba casuumaddii ay samaysay gabadhii haybe oo kale ayuunbay ugu yeedhaa ile khidadii baa la helay ayuunbay ugu yeedhaa asxaabtii dabeetana isagunbaa basbaaska loogu badiyaa dabeetana higadii unbuu bilaabay haybe maxaa ka higeysiiye haddaba higada haybe maxaa keenay miyaad garatay waxaa keenay higada haybe qaybtiisii cuntada ayaa basbaaska loogu badiyey dabeetana marka basbaas cuntale aad bilowdo oo adiga arkay markaba higaad bilaabaysa halkii buu higahay haybe higadii ku waday dabeetana raggii kaloo dhamminina nin waliba gabadhiisii wuxuu ku wuri isma jeclin baan u malaynayaa waayo bay tiri ma higooda buu ku leeyay dabeetana halkaa sheekadani waxay la magac baxday sidaasay kula magac baxday higa jacayl waayo intaasoo qoys oo kala jaara ayaa waxa weeye sheekadani ay ku dhacday oo asxaab ahaa oo daris ahaa oo meelo isu dhow deganaa oo iswada yaqaanay oo iswada garanaya markaa sheekadu waa higa jacayl. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.